السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhacdadan aaday u naxdin badan tahay waa murug badan tahay waxa u jeedaa gabadhan quruxda badan oo marxuumadii Allah u naxariistay iyo wiilka la taagan waxay isqabeen 58 maalmood sida ehelka ay noo xaqiijiyeen hase yeeshee cadeymaha aad ka soo arki kartid snapchat-ka ma aha telegramka snapchat-ka aad ka arki kartid waxaa gabadhan oo la yiraahdo magaceeda Ifraax Cabdullaahi Muuse 20 sano jir ahayd si bahalnimo ah loo dhaafiyay nafta iyada oo aan banaanka lagu dilin gurigii ay afada ku ahayd dhexdiisa nafta looga qaaday dood ayaa runtii kiiskan haraysay shaki ayaa jira weyn waxaase gacanta lagu dhigay oo la haayaa ninka iyada qabay oo ninka la sawiran ah oo la yiraahdo Dayax Cabdisalaam dadkan oo calafku isku keenay oo Soomaali uun isla ah aan ehel emailna iska soo galin ayaa waxa ay wada joogeen oo kaliya 58 maalmood gabadha ayay xogtu sheegaysaa in runtii sawirada aad ka arki doontid telegramkana ilkaha inuu dhaawac ka gaaray xoogaa juga ay jirto hoortana uu duf kacsan yahay oo macnaheedu ay maqaarka uu kacay raahday maqaarka uu kacay nabar xooganna uu ka muuqdo gabadha oo sidoo kale u eg qof aad u xarbiyay oo la marjiyay ayaa indhaheedii waxa uu noqday mid runtii gaduudan oo dhiig oo kale xinjir ah ayaa fadhiya taasoo dadka ay sheegeen damibaarayaasha ah iyo sidoo kale ehelkeeduba in loo adeegsaday gabadhan marji macna nafta loo qaaday ceeji la ceejiyay marka mamaraa lagu ceejiyay ma gacana ma kala cadda in kasta oo sawirada aad arki doontid laga tusaale qaadan karo in uu arintan ku dhacay wax runtii gacanka macna ka badan oo ilaa gacanta ma keeni karto in maqaarka qofka uu fiiqmo waa ku sawirmi kartaa calaamad ah laakiin macnad meeshan kama kacayo macnaheedu maqaarka marka waxba lagu riixay gabadhaas oo sidaas ayay ugu dhimatay qolka ayaana laga soo saaray iyada oo meyd ah falkan waxa uu ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho gaar ahaan degmada Shibis halka la yiraahdo geedka tabeelaha jaceelka sida ay dadku sheegeen waxaana waalidka gabadha ay go'aan ku gaareen inaan la aasin walaasheen marxuumadda ah ilaa ma kiiska cadaalad laga helayo taas oo soo dadajisay in dilaaga ninka looga shakinayo inuu falka isaga ka dambeeyay loo qaaday xarunta dambi baarista ee loo yaqaano CID-da halkaas oo xilliga ay idin la hadlaayo uu ku xiran yahay halka gabadha marxuumadda ah ee la yiraahdo Ifraax Cabdullaahi Muuse Axmed ay wili ku jirto filinjeerka oo kiiskeeda dhinac in loo rido mooyee aan si kale run ahaantii ay ehelku ku qanaceen waxaa sidoo kale baaris la dalbaday in gabadha oo looga shakiyay in qoorta sidoo kale ay jabtay ama jab uu jiro baaristaas oo aan wili soo gabagaboobin ayaa fursad siinaysa eedeysanaha wili aan lagu xaqiijin dambiga inuu isaga geystay wax xigasho ah dhankiisa lagama haayo ninka loo haysto falkan inuu isaga geystay hase yeeshee waxaa la xaqiijiyay oo dad goobjoogyaal ay sheegayaan in gabadha ay inta falkan uu dhicin ka hor wax u eg cabasho ay u soo gudbisay qoyskeeda oo ka dhan ah ninkeeda marka iyagiina laamaha amniga maadaama aysan la wadaagin ma sugnaan karo warka ah in isagu uu dilay